waxbartaan 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 barwaaqo gaarne waxbartaan 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 barwaaqo gaarne. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada kanaalka Ustaad Saciid Training. waxaynu guda geli doonaa qaybtii 13aad ee casharadeenna hore inoo kusoo socday. qaybtii ka horeysay waxaynu ku barnay sida loo diyaariyo shahaado. qaybtana waxay la xiriirdhaa qaybtii hore. shahaadadani waxay kaga gedisan tahay tii hore. frameka halkan inoogu diyaarsan wuxuu ku guda jiraa Photoshopka, laakiin qaybtii hore waxaynu ku aragnay frame aynu gacanteena ku diyaarinayno. marka sidoo kale shahaadada qaabka ay u design garaysan tahay waxa weeye qaabka shahaadooyinka tababarada markii la bixinayo ama seminaarada kale lagu bixiyo. intaa waxaa sii dheer sidaan horey baan igu sheegay Photoshopka waxaa ku jira kalaro badan. backgroundkan dambe color adigu nooca doontid baad dooranaysaa. qaybo badan buu leeyahay halkan sidaa ku arki doontaan. hadda qaybta labaad oo ujeedaan xoogaa designku waa ka gedisan yahay. qaybta saddexaad sidoo kale waa kasii gedisan yahay. qayb afraad baa kusii jidha oo iyadana waxa weeye qaybtaasa wifaysa oo lightkaasa. marka waxyaalo badan oo muhiim ah baa waxa weeye halkan insha Allah ku baran doontaa. marka waxaynu isku daynaa inaynu guda galno. waa iska xiraynaa qaybahan meesha ku jira horey aan ugu diyaariyey. waxaynu soo furanaynaa page cusub. sayskan waa sayskii horey aynu shahaadada ugu diyaarinaynay 297 oo ballaca 210 oo dherer ah. millimeter weeye sayska aynu isticmaalayno, halbeeg aynu isticmaalayno. waynu guda gelaynaa marka. halkaa markaa joogtid waxa weeye sidoo kale waxaynu soo gelin doonaa qoraal ii diyaarsan si aana daqiiqaduhu inoogu dheeraan. qoraal baynu soo gelinaynaa. sidoo kale framekii baynu xiraynaa. render baan tegaynaa, kadibna picture frame baan ka dooranaynaa. framekayga waa kan, aniga kan ayaan isticmaalayaa, laakiin frameyo badan baa halkaa ku jira. frameyo badan baa ku jira, midkaa doontid baa dooranaysaa. adiga ayay ku jidhaa. sayska aad waxa weeye ballaca macni darbiga intuu jirsanayo 7 baan ka dhigaynaa. numberkana number 20 baan ka dhigaynaa. waa cabirkaynu u baahan nahay. marka waa soo gelinaynaa. waa inoo joogaa framekii, qoraalkiina waa inoo joogaa. waxaa inaga maqan qoraalla aynu ku dari doono. baa inaga maqan. sayska waxaynu ka dhigan doonaa 52 baan ka dhiganaa sayska. kadibna aynu durkinaynaa booska uu leeyahay baan dhiganaa. waan durkinaynaa sayska uu leeyahay baan dhiganaa. waxaynu soo gelin doonaa sidoo kale
intayna soo gelin qoraal yaraan ku daraynaa asna qoraal yaraynu ku daraynaa qoraalka waxaynu ka bedeli doonaa farta ay ku qoran tahay waxaynu ka dhiganaynaa size-kana waynu bedelaynaa 48 baan ka dhigaynaa booskay leedahay waanu keenaynaa sidoo kale waxaan rabnaa xarfaha ugu horeeya mid walba inaynu ka dhigno xaraf weyn halkaa markay joogto waxaynu soo gelinaynaa logaan soo gelinaynaa logaan soo gelinaynaa loogada markii background baa la socdaa waynu ka jaraynaa backgroundka marka hore waxaynu soo qaadinaa tirtiraha ogaa layer baynu weydiinayaa si layerka aan u helno kadib delete baan leenahay control D baan oranaynaa kadib control T baan leenahay si aan u yarayno kor baan kasoo qabanaynaa waa yaraynaynaa kadib waxaan u talagelaynaa halkaas inaan la ekeysiino inahaasaan ku dhaafanaynaa waxaan sameynaynaa kuwan baan rabnaa inaan colorka kasoo bedelno inaan ku hormaraynaa right click baan leenahay blend option baan tegaynaa waxaan oranaa pattern baan imanaynaa qaybtii kale inoo diyaarsan marka colorka aan u baahana halkan kuma jiro qaybtan baan tegaynaa waxaan tegaynaa rod pattern baan tegaynaa kanaan ka dooranaynaa okay baan leenahay qaybtaa kore saasay noogu diyaarsan tahay qaybtan baa imanaynaa right click baan leenahay blend option baan tegaynaa kadib waxaanu ka dooranaynaa halkan qaybtaan u baahnayn kuma jiro qaybtii aynu haddeer ka laabanay baan tegaynaa qaybtaasaan ka dooranaynaa iyadana okay baan leenahay waxa weeye certificate-kii hadda waxa weeye wax yar baa inoo dhiman waxaa inoo dhiman waa signature halkana iyo taariikhdii oo aynu ku qorno arial baan dooranaynaa farta waxaan ka dhigaynaa 24 halkan kadibna signature baan oranaynaa halkaa inahaasaan ku dhaafinaa waxaa inoo dhiman sidoo kale date inaan sameyno halkan ka sameyno marka waxaynu qoraynaa 30kii bishii
March 2020 waxyar baa marka xagga u yara durjinaynaa qaybtan waxaa ka maqan signature-kii baa ka maqan isagana waa soo gelinaynaa signature-kii baa maqan dahaasaan uga tegaynaa signature-kana kuwan marka kalarka black baynu ka dhiganaynaa waxweyn maaha waxaan ka dhignaba black baan ka dhiganaynaa tanna black baan ka dhiganaa waxa weeye shahaadadii waxa weeye sidaas bay ku diyaarsan tahay okay hadda waxaan tusinayaa horena waa usoo aragteen sida backgroundka kalarka looga bedelayo marka waxaad dooranaysaa qaybtan u hooseyso backgroundka dooranaysaa kadibna circle baa soo furanaysaa markaa soo furatid circle-kii baa soo xiraysaa circle-ka markaa xidhid waxa weeye ayu kalar kuu dooran oo meesha kugu jira baad dooran kadhaa qaybtan waa qaybtii baatanka weeye marka hadda intaasaa kuu diyaara haddaa rabti inaad bedeshada halkana ka bedelaysaa waa in xaggaa laga tago halkan markaad joogtidna kalar allaale kaa doontid baa halkana ka saaran kadhaa kalarkaa doontid baa halkana ka saaran kadhaa ka dooranaysaa halkana sidoo kale kalarkaan oo kala dooran kadhaa oo ah kalarkii inoo doornaa marka backgroundkana saasa wax uga bedeli kadhaa qaybtana intaasaan ku joojinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu